sheekada kun habeen iyo habeen waxa ay noo joogtay markii ninkii beeraleyda ahaa uu ku yiri xaaskiisa haddii aan kuu sheego waxa aan ku qoslay waan dhimanayaa iyadana waxa ay ku tiri xataa haddii aad doonto dhimo ee waxa aad ku qosashay ii sheeg ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid mahadsanid markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii iskugu wacay si uu u dardaarmo dadkii ayaa isku dayay in ay naagtan celiyaan oo ay la hadlaan laakiin waa ay ka diiday waxayna tiri waan ogahay aniga ayuu igu qoslay ee ha ii sheego waxa uu ku qoslay xataa haddii uu dhimanayo ninkii beeraleyda ahaa naagtiisa aad ayuu u jeclaa wuxuu go'aansaday inuu u sheego wuxuuna aaday gurigiisa si uu 2 rakac oo sunno ah u tukado asagoo guriga ku dhex jira ayuu wuxuu maqlay eygii oo guriga u joogay oo diiqa la hadlaya wuxuuna yiri diiqow adiga halkan ayaad $50 iskaga dhex fadhisaa saaxiibkeena wuu dhiman rabaa markaas ayuu diiqii yiri wallaahi saaxiibkeena hadduu caqli leeyahay naagtu wuu iska edbin lahaa aniga $50 ayaa ii joogto midaan hadday iga xanaaqdo intaan edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa waxayse fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso ninkii beeraleyda ahaana hadalkii ayuu maqlay kadib ayuu soo baxay wuxuuna u yeeray naagtiisa wuxuuna ku yiri qolka soo gal gooni ayaan kuugu sheegaa markay qolka soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ku qayliso waan toobad keenay halkaas ayayna naagtii hadalkii ugu naqatay dadkiina ku farxeen maadaama ay noloshii ninka badbaaday markaas ayuu wasiirkii gabadhiisa ku yiri adiga sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqaa intaad is leedahay dadka la badbaadi naftaada halis geliso markii Shahrazad maqashay sheekadaas ayaa waxay tiri wixii dhacaya ha dhacaan boqorkan ii guuri aniga diyaar u ah sidii ayaa gabadhii boqorka loogu guuriyay waxayna gabadhii Shahrazad ahayd la sii dardaarantay walaasheeda ka yar ee Dunyazad iyadoo ku tiri markii boqorka la ii geeyo waxaan ka codsanaa habeenkaas markii uu dantiisa iga bogto inaad habeenkaas wehel ii noqoto haddii uu ogolaado waxaad igu dhahdaa abaayoy maad noogu sheekaysid sheeko cajiib ah oo ka mid ah sheekooyinkaaga halaasiga ahaa maadaama aad beri naga tegayso oo lagu dilaayo anigana insha Allah sheeka aan boqorka kaga takhluusayo ayaan bilaabi doonaa kadibna gabadhii sidii ayaa lagu galbiyey markii boqorka loo geeyey ayaa gabadhii Shahrazad ahayd oysay markaas ayaa boqorkii Shahriyaar yiri maxaad u oynaysaa waxay tiri waxaa jirta gabar walaasheeda ah oo iga yar waxaan rabaa in aan sagootiyo ee ii ogolow markaas ayuu u ogolaaday kadib markii Dunyazad imaaday ayay hab siisay iyadoo sagootinayso markaas ayay Dunyazad tiri abaayoy maad noogu sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah markaas ayay Shahrazad tiri waan ka sheekeynayaa haddii boqorka noo ogolaado markuu boqor Shahriyaar hadalkaas maqlay ayuu yiri bal sheeg aan maqalnay sheekooyinkaas mid ka mid ah habeenkii koowaad Shahrazad waxay sheekadii ku bilowday waxaa isoo gaaray boqorow inuu jiray nin taajir ahaa oo xoolo badan iyo carruurba lahaa wuxuuna ahaa nin aamin ah sidaas darteed bay dadka xoolahooda ugu dhiiban jireen maalintii dambe ayuu ninkii safar galay wuxuu socdaba markii dambe wuxuu harsaday geed si uu ugu nasto cabaar markuu geedkii fadhiyey ayuu kolay uu watay kala soo baxay xoogaa timir ah isagoo bilaabay inuu cuno wuxuuna timirta lafteeda ku tuurayay meel u dhow waxyar kadib waxaa agtiisa ka kacay boor aad u weyn hadduu sii fiiriyey waa cirfiid aad u weyn oo gacanta ku sitaa seef qar weyn aadna u af badan cirfiidkii siduu u soo socday wuxuu kor yimaaday ninkii taajirka ahaa wuxuuna ku yidhi waan ku dilayaa sidaad wiilkayga u dishay markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi sideen wiilkaaga ku dilay maba arkin cirfiidkii wuxuu yidhi adiga markaad timirta cunaysay laftii aad tuuraysay waxay wadnaha ugu dhacday wiilkayga oo isla goobtii ku dhintay sidaas darteed qisaas ahaan ayaan ku dilayaa markaas ayuu taajirkii yidhi aniga kama warqabin inuu wiilkaaga meeshaas joogay ee iska kay cafi hase yeeshee jinigii waa uu ka diiday wuxuuna ku adkaystay in wiilkiisa uu qisaasi doono markaas ayuu ninkii taajirka ahaa yidhi cirfiid yahow aniga waxaan gacanta ku hayaa xoolo badan oo ay dad leeyihiin kuwaas oo ammaano ahaan la igu dhiibtay waxaana kuu ballanqaadayaa markaa qof kasta xaqiisa soo siiyo inaan kuu soo noqon doono si aad wiilkaaga iigu qisaasto hadalkaygana Allah ayaa wakiil iiga markaas ayuu jinigii ka ogolaaday
sidii ayuu ninkii ku soo baxay wuxuuna yimid magaaladii uu degnaa asagoo iskugu wacay dhammaan dadkii iyo ehelkiisa si uu qof kasta xaqiisa u siiyo. markii dhammaan dadkii xaqooda uu siiyey ayuu u sheegay siday wax u dhaceen iyo xaalka halkuu marayo. markaas ayay dhammaan qoyskiisa iyo ehelkiisa wada ooyeen iyagoo sagootiyey aadna ugu xun siday wax u dhaceen. ninka maadaama uu ballan qaaday si uu ballantiisa u oofiyo markuu qof kasta xaqiisa siiyey ayuu soo baxay asagoo soo aaday halkii uu jinniga kula ballansanaa. wuxuu soo socdaba asagoo karfantiisa wataa. markuu imaaday geedka hoostiisa ayuu iska fadhiistay wuuna iska ooyey. xoogaa kadib asagoo ooynaya waxaa meesha soo maray oday wata deero. wuu salaamay ninkii wuuna waraystay wuxuu ku yidhi, maxaa keligaaga halkan oo bahalagaleeno jinniyada deggan yihiin ku fadhiisiiyey oo aad u ooynaysaa? ninkii taajirka ahaa ayaa ugu sheekeeyey siday wax u dhaceen. markaas ayuu odaygii go'aansaday inuusan ka tegi doonin ilaa uu ka ogaado sheekadan halka ay ku dhammaan doonto. iyagoo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxaa yimid oo waddadii soo maray nin laba ey wato. iswaraysi kadib ayay u sheegeen siday wax u jiraan. markaas ayuu asigana go'aansaday inuu meeshii ka tegi doonin oo qisada dhammaadkeeda ogaado. iyagoo sidii meeshii u sii fadhiya ayaa haddana waxaa jidkii soo maray nin baqal wato. iswaraysi kadib markay u xog warameen ayuu asna go'aansaday inuu sheekada dhammaadkeeda ogaado. afartoodii oo meeshii sidii u fadhiya ayaa waxa uu yimid cirfiidkii oo seeftiisii qarada weyneed wata. wuxuu soo qabsaday ninkii taajirka ahaa si uu wiilkiisa ugu qisaaso. markaas ayaa waxaa hadlay odaygii deerada watay wuxuuna yidhi, jinniyahow taajkii boqoradow, haddii aan kaaga sheekeeyo sheekada na dhex martay aniga iyo deeradan oo aad ka hesho ninkan dhiiggiisa 3 meelood meel ma ii hibaynaysaa? markaas ayaa cirfiidkii yidhi, haddii ay i cajibiso haa waan kuu hibeynayaa. markaas ayuu odaygii sheekada ku bilaabay sidaan, deeradan aad u jeeddo waa xaaskayga ahna ina adeertay. iyadoo yar ayaan guursaday. muddo markaan isqabnay oo wax ay ii dhali weysay ayaan waxaan samaystay jaariyad. waxayna ii dhashay wiil aad u qurux badan, wejigiisna uu ifaayo sidii dayax 15 ah. wax bayaan warka kugu daalinine maalintii dambe ayaan safar aaday. markaan baxay ayay naagtaydii oo sixirka wax ka taqaanay sixirtay wiilkaygii iyo hooyadiisaba iyadoo ka dhigtay lo iyo dibi. kadibna waxa ay u dhiibtay ninkii xoolaha ii qaabilsanaa. markaan muddo kadib safarkii ka soo laabtay oo aan reerkay u imid ayay naagtii ii sheegtay in jaariyaddii dhimatay, wiilkaygiina la waayey meel uu jaan iyo cirib dhigay. aniga arrintaas aad ayaan ugu murugooday. maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in la gaaray ciiddii udxiyadda. anna si aan udxiyad u qalo ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ayaan waxaan ku idhi, lo aad u buuran ii soo qabo. markaas ayuu ii soo qabtay lo'dii jaariyadda ahayd. markii lee keenay ayay rafatay oo ay oysay. anigoo yaaban ayaan qalay, laakiin waxba way ka soo bixi waayeen. keliya waxay noqotay laf iyo maqaar. aniga arrintaas aad ayaan ula yaabay. markaas ayaan ninkii xoolaha ii qaabilsanaa ku idhi, ii keen dibi, maadaama lo'dii hore hilib laga waayey. balse haddana wuxuu ii keenay wiilkaygii dibiga ahaa. markii la ii keenay ayuu asna ooyey oo raftay. inta aan yaabay ayaan ku dhahay, war iga wad dibigan ee mid kale ii keen. markaas ayaa mid kale la ii keenay oo aan qalay. laakiin waxaad ogaataa intay waxaasoo dhan dhacayeen naagtayda wayna daawanaysay. markii sheekada halkaas maraysay ayay Shahrazad ogaatay in subaxii la gaaray. markaas ayay sheekadii iyo hadalkii u bannaanay joojisay. waxa ayna walaasheeda ka yareed ee Dunyazaad tiri, maxaa ka macaan badan abbaay sheekadaada, waan jeclaan lahaa inaad noo dhammaystirto. Shahrazad oo hadalkeedii sii wadata ayaa waxay tiri, haddii boqorka ii oggolaado inaan noolaado, sheekadan waan dhammaystiri doonaa habeen dambe. sidoo kale waxaan idin sheegi doonaa sheekadan mid ka sii fiican oo ka xiiso badan. markaas ayuu boqor Shahriyaar is yidhi, waa sheeko xiiso leh ee ha dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso. sidii ayuu go'aansaday inuusan dilin ilaa ay sheekada ka dhammayso. subaxii markii la gaaray waxaa yimid wasiirka gabadha dhalay oo karfantii wada. aad ayuuna u murugaysnaa, balse markuu ogaaday in gabadhiisa nooshahay aad ayuu ula yaabay wuuna farxay. la soco qaybta xigta ee sheekada xiisaha badan ee kun habeen iyo habeen.